تعالى وبركاته قرأ جامع جواب وافية أو صومالي أو لنا مرخانتك النقطة أنت أنا عاو هالكن كسين حابها ويا يحاول دارود أو فرين أذق يوصل درين شعب قبل كبنادر أنت أنا إذا ندول استاجين هي حالة الجود الصومالية يا هالك إيمانة الصومالي الكبية شبان سيالك الله صعده إد مقدول لجسين ترين إدت كاس ريبوتنا الحسوقية حقوق ورئيسين عيسى واري قيس دل أوررميوي وأنا قيس كيشنادوي أكون رسائي وزارة سبورتس كبنتولان عيب تدله وجنيسه هي الشعب كبوساسو دتك مقاحيالها كوي ميردالها أو أي كلا جوستين لعقتي وتلاد هي لعقتي عنتضع يرتضي كل عنتي هي شقالي سبورتس كدعوة أنت عن قضباس وده كود رسائي قضب كيودن بيولي وحقيبك نكي ملاحها ولا ربكوب كينو سقو حره أو السجن البنطي وهالكاسي إمارات كهذي sababtoo markuu furayay baa lagu oriyay golihii wasiirada waartay wala mulaaxo shacabka boosaaso oo dhan baa garoonka oo dhan baa isqabsaday mulaaxo watay lahaayeen waatuu si loo keetay dhalinyarada u xirxiray isagoo afka inta cumburka ka wada wax kale uma cararin si koobka marka uu wareejinayo ama soo xirayo haddana aysan dadka reer Puntland ugu orin wax kale uu ninka u cararma jirto laakiin dad baa u qaba inuu ninkan taageero weyn uu Puntland ku leeyahay waa ku diristaagay kulligiin kuleel baad ku soo galay raali ahaado ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair dal iyo dibad meel kasta aad joogtaan sanadkan sanadkiisa kale ilaahay barwaaqo iyo caafimaad iyo bashbash Allah ku gaarsiyo inta xanuunsan ee dhuliyaalka ah ilaahay caafimaad ha siiyo inta dhibaatooyin kale ee gaar iyo masiibooyin haystaan Allah ka dulqaado inta dhimata Allah u naxariisto inta nool Allah barwaaqeeyo gabdhaha iyo wiilasha Allah noo barakeeyo dalka iyaga Allah noo hagaajiyo qulubteedana ilaahay burcad ilaahay subhanahu wa ta'ala burcadaha sumari waxaan ku horeynayaa Soomaaliyeey dhageysta waxa la yiri war alaysa minkum rajulun rashid nin xaq sheegi doona idinka soo bixmaayo miya waxaan anigu xasuusta oo soo taagnaa anigu waliba badbaado qarana oo afayeenka Puntland iyo Jubaland iyo gobolka Banaadir waxaan u soo taagnaa xasan sheekh wuxuu leeyahay iga arkeeyay oo dhiiqaya lagu gelin waagaas Hamza Abdi Barre mucaarad buu ahaa ninka la dhaho xasan sheekhna mucaarad buu ahaa sheekh Shariif oo inta beerka laga garaacay dig ma waaga muddo hartay abgaalba waxa dhacday watulaha thumma wallahi watulaha Abdurrahman Abshakur isaga ka dhub iyo dharar bay u isticmaaleen intay gurigiisa ugu tageen oo lix wiil ka dileen bosriirta hoosteeda galay markaas mid baa buumaa ku soo dhigay markaas soo cararay markaas mid kale baa feer ku bilaabay waa ogeedeen khayr yahuud maatiin albaabka iga furo isoo wale ilaahay baa idinku dhaariyay odayaashan horta laba reerood Soomaaliya iyaga waa ayaan daran haddaan ku sheegaya laba reerood baa Soomaaliya ugu ayaan daran reerka la dhaho daaroodka iyo reerka la dhaho Isaaqa Soomaaliya ugu ayaan daran inta isim ee leeyihiin Soomaaliya arag waa wada xaabo qof laga qaataana male bal intaanu isim kasta lacagta ku kacdo waa $1 milyan ama $2 milyan ceelal u qada baraagay u samaysaa waxbarasho u samaysaa nolol dhan bay u samaysaa kuwa Isaaq qaaday inta waa ku dhaafsan yahay waa marqaansan yahay Ingiriiska British buu ku leeyahay waraaniga British waxa ay qusay waxa uu ogolaya koonfur oo dhan hal isim baa ka jira hal isim waa ninkii la saxaan loogu imaan jiray waagi aan nimankaas ku dhaganeen wuxuu ka diiwaan gashan yahay iigad inta Talyaanigu gumaystay oo dhan aabihiis baa isim u ahaan jiray imaamka ninkaas baa beesha caalamka iyo iigad iyo dunida oo dhan ee la macaamisha koonfur oo dhan iyo inta Talyaanigu gumaystay oo dhan isaga isim u ah waa loo tagay maalintii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xasan sheekh klibka oo daawanaya ka been sheegay u tagay waxa u tagay sheekh Shariif u tagay waxa la yiri noo fadwood isimkeeni waa tahay ma yiri waa edab darantiin waan anshaxuntiin biiri farmaajo waxa uu sameeyo waa ku saxbi farmaajo waxa uu yeelayo oo uu sameeyo oo gobolkan ka wado waaba la dhacsanahay biiri raali ahaado riya weligiis siyaasad ma gelin amrigi meel laga cambuuleysanayo lagu ma arag weligii dari reer soo dul taagan lama arag waa dhageysateen garaa jaamac hadda koor wuxuu leeyahay ma jeerteen cadaawada idin qaban dhulbahantow haddaad ogaan lahaydeen gabdhihiina miid ah siisan cadaawadi maanta banaanka ma taala maanta garaad kun wiil ma ka dhimata jarmalka ma kaaga soo duulay maalintii aad tiri wixii dagaalayna dhaxmaray halka iga dhig si tolnimada u wada hadlayna maalinta aad tiri gala dagaalka
ما أنت ترمك الدعوات بقى كسعتها أذيك اللي أجل درتها عن صباحي وعي عن رادينيني ووقوي بريئها ورئيس وزراء حمزة عبد البر اللي بتشريمي ومدحوينيه الدل كيمي انت ما أنت مقعد مقدشة تكتو الله أفضل لو كوها الله اسمك جودة دارات بعنا إن تكون كاجويل حق ودي أتكتنا شو ومن لا حي إن أتكده فيشو قرد وركاج هراء صحها ما ترتين أراد والبان توقع بكاسة صحها كم ضم بحبك ما ترى والبان توقع أوليه هاي أفر يتمن اسم بوليه نكوين بعد هاي أفر يتمن اسم وكريك هذا بس ما يستاهل والبان تعرف هذه ما هين أذوقنا الدور كوجرتي ما هين إنجرا ونا لقاب بيلو لقانا بيلو هرجيسنا ما هين مدة الصومالية راح لقيبسته ومامل النقطة ما أنت مامل بطلان كعاقبة بدن كوين كوحتر بدن بعد هاي ستا سيداهي كما تسي ما أنتو محمد عبد الله فرماتشو نمكا هوية حبدا لدعيي محادو ورنوذي فرماتشو قرحي صوب أرقني أمني أرقني دالك ميشا كوة أرقني وروحا وضوه شلي الصومالي كلا جيسي كوي سياشا كي مقاد كرنو وركتشو مدحد القرن كو حبدا لدعي محمد عبد الله فرماتشو ديارادو كو قرحين لها قريوه كو قري ما انتنا اسم او دارادو مانتا اسدبا جوغا هل نين او هالي او حق الشيغي او محمد عبد الله فرماتشو كور يمي ما جيرين ميدا بدل كده تريب كوري حسن شيخ وغاسكا مريحان با انتو سو تغي وخي او تغي شير تغي markuu shirki tagay oo odayaashii dhaqanka tagay buu yiri xasan sheekh laba gabdhood buu qaba xasan sheekh maama saar khair allah siiyo imaam qaban buu yiri gabar baan ku siinayaa xilka isaga tag maalin kale hadda maalin waxaan ku arkay xamar soo ka hadlaya maalintii maxamed cabdullaahi farmaajo dalka qalalaasaa gelinayay oo anigu mulaaxa aan la socday oo badbaado qaran aan ahayn maxaa noogu hadli weydeen maanta aniga mulaaxna waa sahaynaa idinkana warkiina anaa Soomaali u sheegaya waxaan leeyahay dhari imaarad baa dul taagantihiin garaa jaamaco waa kugu celinaya hadaad ka tanaasuleysid xaqa kunka wiil ee isaaq kibirka ku dilay hadaad ka tanaasuleysid kuwa sariiraha saaran ee jajaban hadaad ka tanaasuleysid maamulka waqooyi bari Soomaaliya anu ka tanaasuli maayo nima jirtana ka tanaasuli maayo xasan sheekh baan wadanaa sida siyaad brokers dooran leenahay حسن ويا لو عبسي قلي ديار بقرة دار هاي ستا سومالي ديدك ملاحنا قنتال وقلي إيرانا قنتال برتس وقلي حابها ويانا واكا عدكتها السيمدينا تجي مقالة مقدشنا داد كان مقدشة جوا الله الله والله يكون وضيا شيء دي هذا خير ليهين بطلان بايس بتال هلي لهيد هذا عاقبة ليهين بطلان بوحبر شفرية اللي تطبيلها تنصر هو يدي فترات كعه haddii ay waxtar dadkooda iyo deegaankooda ay u leeyihiin ay leeyihiin waa matala ceelal iyo biyo iyo barwaaqan gaari lahayn waxaa indhaha noo yeelay waa koofiyad bacle siyaasi ah warkooda ha dhegaysanina been weeye waxba kama jiraan yaa layda waalin waxaa laascaano u dagaalamaysa kunka wiil u dhimatay nabad bay ahayd tiibaa muqdisho maanta laga haystaa garow midda taalla waa nabad taasaa muqdisho maanta laga haystaa hargeysa waxaa taala nabad taasaa maanta muqdisho laga haystaa kismaayo waxaa taala nabad taasaa laga haystaa magaalada muqdisho shacabka reer muqdishona lo' ma aha qoryaha qaata dowladda ciidanka qorta soo baxa qofkii codka codeeya xashan sheekh sawiradiisa la soo baxa xaabaha wiyo iyo xaaba daaroodna afka ka garaaca anaa idin fadwoonay wallahi ilaahay baad ugu dhawaanaysaa billah sababtu waa maxay qofka haddii uu ku soo duulo sharafkaaga iyo cirdigaaga iyo dadnimada maxaanu caawa qurbaa ka qabanaya waa horaan safiir noqon lahaay وهو راشدالك يكفى إذا سأل هاي محايا قيل السنة وأضياش عمري الدون كدار تقف وين وضقنا هذا عرفته هايسدين قف كوين وابي عقل الهنجر سببته قف كوين بدقولين ولا دقولك لكن إن ما أنت عنينا الدولة الآن أي دكتان روح أسوأ عقلي قليل ما هوي وياش أقول لك بنادر شو الله يا حابة ويعد ومظاهراتنا ودول يستاجنا حلينا الروبان تتوقف عن سري وشقاليه قرية الشيخ شريف كور شقيني
sheekh shariif tolkii saartay abgaal baa yiri annagu dagaal aan kula iyaga xasan iyo dawladda garab taagan ciidamada ugu badan waa iyaga maawusleeda ugu badan waa iyaga waxa dawladda garab taagan waa iyaga waxa shabaab kala dagaalamay waa iyaga waxa dawladnimada qurxinaya waa sheekh shariif reerkiisii waa fiiriyo yiri sheekhu xaar baa ka awraya naga tag khayr allah ku sii oo diiday oo banaanka ka istaagay afar habrood iyo laba staafkiisa waa lagu soo qabanaya waa lagu dilaya dawladda federaalka inay inta ka goyso ilaahay bay ugu dhawaanaysaa dadka reer muqdishona shalay bay ku wiiliyeen oo wiilal kugu aamineen oo aad tiri diinka u hiilinaya markii dambe hal bacaal lagu lisay ilaa wada dhaqaaqday ragiina waa la duqay ninka kaliya oo saaxiibadiisu dhalayay baata waxba lacagta imaaraat iyo mulaaxid yaan shariif oo lagu dhihin reerkaaga dabka gali ha gelin diid lacag waa cunus meelahaasna hadda madax meel ka soo taagtaago anu taladaas ku sinay cabdiraxmaan cabshakuur iyo khayr madax sabuul iyo sheekh shariif kalafkiisa iyo tabar ku hartay oo muqdisho dhaxaysa ee maanta hayaan anaa Soomaali u sheegay ma jirto laakiin waxa soo haray tabar bahal la dhaho doqon maweydu waa facebookaas marka waa niman xaar ka ureeyay sentimeystan xogaa dhurqaayo bisha meeqa oo kooda bisha soo dhacaysa Soomaa saasa mudaharaadka loo abaabulaya 7 sawir waxa la soo birta garanay xashiq maxamuud uu leeyahay markaas waxa la leeyahay xamar baa laga mudaharaaday fariintaas shacabka banaadir idin soo diray warkiina naguma socdo weeye waa idin naqaanaa weeye tuugaatiin weeye waxba idin kuma dhex jiraan fama wallahi xasan suu intii daba laxdeed ku sawiray oo gobolka banaadir ugu hiiliyay oo nabadda u dhaliyay oo dadku maanta wada shaqaystaan dawladdu way imaan doontaa maalin cayr bixiso maalin baa imaan doonta dawladdu ay cayr bixiso maalin baa imaan doona qof kasta oo Soomaaliya halkiisa u dhaqaale ku qaato laakiin maanta maalin ma tahay nabad baa la nuugale taa nabad nin haystaana intuu yaambadiisa qaato ama faaskiisa qaato qutulyoom doonta laakiin nin nabad beeysan muxuu qutulyoom ka doonta war nin guriga ka baxay oo inuu dhimanayo iyo inuu soo noolaanayo hooyiisna ogeen isna ogeen ka war halka hadda inta baxdo aad tagaysid kilomitir 4 sayidka tagaysid kaaraan tagaysid yaaqshi tagaysid marka fariintaas idin soo direen warkiina naguma socdo weeye naga aamusa weeye idin dooni mayna weeye waka waxaan dul istaagay halkaas kaga gudbaya xasan sheekh iyo xamza waxaan leeyahay ka tanaasulin qof iyo cod kuwaan dawladda Turkiya baad u haysataan maalin kasta hub iyo ciidan baa degaya dhalinyarada ciidankiiba qoranaysa war ilaahay baa idin jecel kursiga ciyaalka maaha kursiga ciyaalka mulaax ma doorasho qabtay madaxweyne cashiq oo ku weydiiyay axmedoobe soo madaxweyne uma tiid soo amarkaaga ma diidin sidee amar axmedoobe iyo mulaax iyo imaaraat iyo Netanyahu dabada ka wadaan ku aqbalaysaa marka hadda aqbasho doqonnimadii hawiye lagu sheegi jiray iyo xoolnimadii hawiye lagu sheegi jiray iyo dameerkii lagu sheegi jiray baa run noqonaya qodobka halkaas kaga tagay waaye waxaan dul istaagayaa deegaanka loo buro reer Jambeel dhaho baa lagu duqeeyay maalin hore laba reerood cali salaabaan ahayd iyo laba reerood dishisha dadkan imaaraad baa leeyahay waxa lagu leeyahay ka guura deegaanada daacish baa raadinayna walaal daacish hadii la raadinayo ileen diyaaradu way sawirtaa markii aad duqeynayso sahan bay diyaaradu dirtaa way soo indhaysa meesha GPS ka xogtii oo dhan baa la hayaa meesha macarabta ku barbarata dadka reer Puntland anu ma fahmin teeda kale safar kasta oo Saciid Cabdullaahi dan u baxo duqeyn baa dhacda imaaraadka soo kuma qanba aqalkii warsan gal la dilay imaaraadka soo kuma qanba waxa la duqeeyay laba reerood cali salaam la duqeeyay imaaraadka soo kuma qanba reer disha la duqeeyay imaaraadka soo kuma qan ba hadana reerka Jambeesha caaw la duqeeyay waxa la sheegay dhimashada halkaas inay tahay 9 ruux inay tahay xoolana maharin reerka oo maharin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un baa leeyahay inta dhibata Allah u naxariisto inta dhaawac Allah u bogoday dawladda xaq u raadinaysa ma jirto qof ay ka aarsanayaan ma jirto iday u dacwoon karaan ma jirto bal dulmiga inta la ilaahay baa ku dhaariyay ka war bal ninka dulmiga inta la ka shaqeynay hadduu Soomaaliya waxan qaltaayay ka war ninka dadkiisii ka iibinaya daacish iyo imaaraat ka war oo meeshii loo dhiibay maalinka dadka loo duqeynay jawaabna ka keeni kara cid duqeysay muxuu madaxweyne ka yahay haddaad garanayn dawlad Puntland maxaa ka tahay haddaad garanayn dadkan la laayay cid laysay
waxaan dul istaagayaa koobkii baan dul istaagaya horta wasaaradda isboortiska Puntland gaarsiiya waryaal